toddoba sano ayaa laga joogaa aasaaska idaacadda ciidamada qalabka sida markii ugu horeysay ay ahayd ee laga maqlo Muqdisho FM u gaar ah umuuraha ciidamada qalabka sida fikirka waagaasi waxa uu ahaa soo bandhigida howlaha ciidamada iyo babacdhigida weedha ay u isticmaalaan argagixisada warbaahinta elektarooniga ah duruufaha adag ayaa loo soo maray magaca iyo muuqa maanta ka tilmaaman warbaahinta gudaha ee FM 90.7 MHz howlka wasaaradda gaashaandhigga ayaa lagu qabtay munaasabad lagu xuseeyay markii la taagay idaacadda codka ciidamada July 2014 oo laga joogo 7 sano mas'uuliyiin ka socda wasaaradda gaashaandhigga taliska ciidamada xoogga dalka maxkamadda ciidamada iyo marti sharaf kale ayaa goobjoog u ahaa munaasabadan maxamed muuse maxamed agaasimaha idaacadda ciidamada qalabka sida ayaa ugu horreynba u sharaxay marti sharafka halkan joogto waayihii ay idaacadda u soo joogtay waxaan kaloo aan ku guuleysanay inaan ka hortagno barbagaanka al-shabaab ay sameyn jireen oo dadka ay ku marhabeyn jireen meelaha howlgallada ay ka dhacaan dadka way qaldi jireen balse hadda marka howlgallo dhaca anaga kaga hormarno taas waxaan ku kasbanay in warbaahinta dunida sida wakaaladaha waaweyn ee maaragtay nala soo xiriiraan ee akhbaaraadka ee ciidanka ee naga xigtaan oo halkaas maaragtay ee noqoto meeshii ciidanka maaragtay kaga xirnaayeen dunida run ahaantii idaacadda hadda waxay yigsanaysaa in muddo dhow insha Allah hal sano oo telefishin ah hawada aan gelino dad Soomaaliyeed arintan nagala shaqeeyay qabanqaabadeeda hadda meel shii ugu dambeysay maraysaa gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa ugu baaqay talisyada ciidamada iyo hogaanada ciidamada inay si gaar ah u taakuleeyaan wiilashii iyo gabdhaha u istaagay inay ku difaacaan afkooda qaranka dal waxaa lagu difaacaa af iyo adin haddii ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay yihiin kuwa ku difaacayo adinka iyo cududda hadda warbaahinta ciidamada qalabka sida waxa waaye hay'adda ku difaacayso afka taas ayaana ka dhigtay inay muhiim u tahay dalka iyo dadka muhiim ay u tahay taas ka dhigtay waxyaabo badan oo aanan ku filnayn in adin kaliya lagu difaacay ka difaacda waxaan taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka codsanaynaa in uu si hagar la'aan ah u garab istaago idaacadda sidoo kale waxaan ka dalbanaynaa taliska kaliya maahay macal saraakiisha iyo hogaanada in ay maxaa la yiraahdaa la raadiyaan u qoondeeyaan gunooyin siyaana mushaaraad intaas ka dheeri ah si niyad dhis iyo maxaa la yiraahdaa iyo dhiirigelin ay ugu noqoto howlwadeennada idaacadda waxaan ognahay inaysan ku filnayn xilligan la joogo dunida casriga ah dadka dagaalka ku jira cadawga waxay necab yihiin qofka hadla iyo qofka aamusan waxay necab yihiin qofka hadlay necab yihiin oo sheego xumaantooda saas darteed waa sida waxyaabaha muhiimadda gaarka ah siinaayo qayb weyn bacdama ay ka yihiin difaaca dalka waxaan rabnaa in ciidamada qalabka sida guud ahaan talisyada kala duwan iyo maxaa la yiraahdaa ay ku sameeyaan ku talagaladooda miisaaniyadda inay qayb weyn ay ka gooyaan ay ku talagalaan in ay idaacadda ciidamada sida dhalinyarada naftooda ay keeneen waxyaabaha u baahan agabka iyo tababarada iyo qalabka in si weyn looga kaalmeeyo General Abbas Amin cali taliye ku xigeenka ciidamada xoogga dalka ayaa ballan qaaday in taliska uu istaagi doono horumarinta dhalinyarada u shaqeysa idaacadda ciidamada qalabka sida waxaan u sheegaynaa bahda idaacadda ciidamada qalabka sida ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inuu diyaar u yahay mar walba wax alla wixii laga qaban karo baahidoodii aan garab taaganahay aan jecelnahay horumarkoodii diyaarna u nahay in haddii alla yiraahdo wax alla wixii loo qaban karo in loo qabto la isku nacin duruufaha jira duruufaha ugu nacina haddii duruuf ay jirto laga raalli hada haddaan idhaahno laakiin wixii dadaal ah wixii karaanka iyaga ah inaan idin qabanno ayaan diyaar u nahay idaacadda ciidamada ayaa ku guuleysatay intii ay jirtay la howlgelidda ciidamada qaabeynta habwareedka ciidamada iyo fududeynta xigashada wararka la xiriira ciidamada idaacadaha gudaha iyo dibadda Cabduqaadir Ciise warbaahinta qaranka Muqdisho